السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يا مروي ومد الصومال الآن يدرك من الشوتبة وحيد ولا مانتا إلى أن كل سنة إنه هرجعه ويسم في قرن كتشمرد الصومال الآن وإنه إن بعضا وباهنين ودرك المتبعي وأهم ما شاء الله وصلت دولة تاريخ الليلي وإبراهيم ضيعين. اسمها ميسم كقرن كلهم باكوا قريب قريب ترى دعاء تمر يهجرين هذه أربعة بعض الأيام قرن سؤال الأول يهجرين اسمها ميسم كا هكذا واحد يقول كده من التاريخية قياستي كل يسقط بقولي السودانية دي وهكذا أساسي هذا من الكهرين ومركز استعمار بالشرعي ديار كده ويا كهر أي تنود هكذا ما تسيبون شفتي ووحي أقول يا ترى على قاعد شيء ساعة خريج الورود بحيي وحقق وهو يغفر من عام القرآن وهذا يقول إنك هو يقول لك القرآن كه إلى استعمال كل هذا إنه وهم كده قال كحرية لقى صوب رابع لقى قري وحي هنشرت حرمتي عندي لوجري SNL لحين فيكم بوليستي ترى وبضنا إن برلمانك وحطوا صوب رأي الله حريصته كلام البرية عون علمي وها ميلكي مقالة كانت فكرة هندسة إن ديارات دي تذكر شيء سالك مساره وكانت هاي قلبي له ينا واحد وقتي مرحلة لبعض ولي في قلبي خصوصا تعالى على إسقى على فرصة دينا فكر كذا هرية معلمي ونسايا ضد بدر أفيشة كي يقارنه جرام كوشة أو كلام تشري فكرة آلي ولا يكسب هاي ما تناول تاني هرجع شيء ميزك وحنا هو قف وليبا والسومالي لاني مال بوح كيدنيا عارف واحد يستعمل الميزانية مال تاريخ كذا الدول تاريخ العظام تاريخ البيع مشتركة تاريخ الفصلية قانونة تاريخ السوغانتا تفنانينتا وعلم الدم وميزانية بقولال بالغ الإنسان مال وربا وأذكر كسقار شنكر أو سركو روحي القبنائي إنه وقف علمي يسوي تجروه هذا وبالتالي ديتنا qofku maalinta uu ayaa ugu dambeysay wuxuu qabtay iyo qaranka iyo dawladda marka waxay noqon doontaa insha Allah bilowgii imika waxa loo dheereynay oo loo badiyay in qolo walba meel loo helo bilowga hadhow markay hore u marana la kala mid walba ay kala baxday meel gaaranayso sida ay taasaan ku dhaafi arrimaha maanta geeska jira waxa taafto wasiirka khaarijiga oo hawlaha dowladda qaabilsan laakiin laba qodob baan soo xusaya ka koowaad waxa weeye صدق هالعشرين نافي أتباع ميديا عرب هي كلوكال كوا بهذا الصومالي لا دي الصومالية هذا لا الأحمر هي وحلا برا هاي تذكر هنتي وكالية هذا وكالية لحلا وتكتشون ومارتي حرمة الصومالي لا عمرك كنتشون الصومالي لا تبالي وحياه له وحياه عرض وكبراب مساه waxay xamar ugu dabaaldegtay waqti jirtay waxaan xusaynaa lixyaan labaatankii hadday oran lahaayeen oo afkiis xasan ay ka soo bixi lahayd lixyaan labaatankii ay gobolada qaatay Somaliland ama maxkamada Ingiriisku waxba ma ahaateen wuxuu ku bilaabay waxaan xusaynaa lixyaan labaatanka Juun maalintii gobolada waqooyi gobolada qaatay arrin tabar aan nawadina ka dhacay in la isku afgaleen in la isku iibinayo waxa weeye xasan iyo inta la aqliga xal joogta waxay u qabaan inay Soomaaliland ahayd gobollo ka mid ah Soomaaliya oo xorriyadda dowladda ka qaatay oo gobolladeedii iyo ay leeyihiin taladeeda iyo maamulkeeda iyo maamuskeeda weerarkeeda bay u qabaan halka markay joogtaba waa halkii lixdankii la isku tubaay habeenkii ay la isku ay qaateen iyo xorriyadda ee la mideeyay loo baarlamaan qalloocii ka dhacay weli kama waantoobin koonfurta xasan sheekh uu ku sii dhitaa carabu balbalaariya sidee loo wada hadli karaa sidee u heshiin karaa laba nin oo nin yahay aniga jaac baa la yiraahdaa ka kale uu leeyahay kuma aqaana anad magac tooba magacayga ta qof kamid ah tahay aniga waxay tahay qoftaan kuma ogoli oo caqliga ku waxa ka taliya taasina waa qoraan soo socotay 30 sano iyo 30 ka dambeeyay 6 sano iyo mareen Somaliland maantii dhawatay ciidda wadnay xasan wahab
kor buu qayliyey wuxuu yidhi anigu waan ogolahay Itoobiyaanka inaanu badsiina haddaanu Soomaaliyada Soomaaliya ugu tirsanaa waxaanu doonaynaa waxaan leeyahay xabashidu waxa Itoobiya waxay qaadanaysaa dhul Soomaaliyeed ee ma aha wax laga heshiiyey oo kira iyo wada hadal ah ee waxaan leeyahay dhulka qaadan maysid oo anaga ilaalinayna xamar baa ilaalinaya Soomaaliya dhulkeeda xasan sheekh baa ilaalinaya xasan sheekh نوينو هرمان وكمان كانوا بيجوا حتى أنا تعرف لكم قرار يا وحكون عايز سؤال إلى هاي شرعي إنتي على الوجود قيوه إما في الوجود قيوه إنت تقول ما أنت حلو ويا جزاء أيوة أدون كورنا بتعسيرية أفرت كوما كانتي صدق لي بيقول مي يجوا يافرت وكي أرسلت له حيسي كنت كل أرش على الوجود سواء لنا وحنا دلي جودي حنا شوفتي وحلمنا كوا مدح الله تاكل رعسل إيره وإحنا تدخلوا مستعد بحال السيرة والدولة اللي قرب دمبه كذا كويس صدق وقت كذا كذا بيا لما يكون يلا ما يبالي وعديني إن يكون يتم ديالها إن كبر الله بقول أو كل أو رئيس وزراء لا أو أنه رئيسني أنت لما تري سنة سؤالات جديدة يقول يريها القفة كويس كذا بيا لا وكذا يقول يريها القفة بحب الرجال الرجال مكدر صدق عشرة تسويه من هذه والدك يا أبوي عارف الحين من والدك يقول من ضيع كان عائلة أو فلان ضويه كذا عيد ضوء يهدي هذا هي مالي لوقا هاي أبوكر به بار فينا سينف يعني وحوي تتكون حين كل عين يوم حلوه هم يا اسمها هدي حسن الشيخ أي عينين إيجابي أما جرون أما الدكان جرون كمقدشو إيو دكان مقدشة لا وحكي تركيا وقول لا ما تبجوله حرنا أبوي أيضا تركيا البنات الدولة كلها حمر بنسي سؤالنا كل ما يرين يرين كلمة حسن ما معمره وحركة البايو حيث آله هنا الجوال maalintii labaad uu habeenku saa ku hadlay oo la iska hadal inay garay markaa aduba iska yiri dameere loo sheeg haddaad intaa soo dhaafsana soo dhawow haday wax kugu hareen dagaalka Soomaaliland waxaa maalintii labaad uu sameeyey wuxuu isku yeeray golihiisa xukuumadda waxay taamiyo oo baarteen 8 qodob uu soo saaray kuwa dabageli maayo حسن وحيني أرجع حسنا قولي بوسط كايا حسنا ولا وسعي قولي بوسط كايا أرجع حسنا وعدم الناس يقولون وحيني حوج سالنا أو أينو وحوج قولي بسوقنا إن الوضع قالنا قولي بوسط أخي وحيني قولي كمو دارين ديالك أرجع حسنا قولي بوسط هذا ويا قولي بوسط وياله حسن وحدة الفرسية هي طلع عليه إنه راح لما الدولود أو سيمان أو ورانتينوا كوا كمان هذول أيلين بدوني كبعد لا أيلو كلا بحناي ملك أيلو تروحي بدوني إنك سووا أنت كعبة ولا بعدين حسن محور راعي واي واحد وضع على بينا ويقول قوس كارس ومال الله إيوه أرجع حسن قوة وحورنا هشيس بالله براي ولا شيء الشباب قدر بيسوني الأول كل يطلق بشيء شو تاكي على النور ويسقون شو وهدي أي ميلان الشباب وانو ليش يلنا هلكا ولدينا فسر شباب سمايسة هي ولدينا سياسة فعلا يسوي بركسو صار واحد صوص على هذا كأنه waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirkooda iga horreeyay maalmaha waxaynu maqlaynay qolo jabhado jabuuti kale xadaysa oo la awdal baan xoreynaa halkaa taa kale inaa filayay hadday sabtaba taa ka noqotay wixii ka dhashay mid arki doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan ku soo koobayaa Somaliland maanta loo bixi maayo
gudaheena waxaa laga rabaa qarannimadan inaynu wada ilaashano oo wada daafacno inagu wax kasta oo dadkoo dhan waa isqabsada qoys baa isqabsada walaalaa isqabsada dadku nolosha waa la iska khilaafaa dadka talada siyaasadda ayaana waa laga yaabaa inay kala ay jiraadaan laakiin waxa laga siman yahay qarannimada loo kala dheereeyo difaaceeda dhammaan dadka Somaliland weliba inta siyaasadda danaysa ee xisbiyada ah ee aqoonyahanka ah waxaynu ka midaysanahay qarannimada daafaceeda iyo inaan qarankaasi wixii dhicinaya aynu u midaysnaano ninkii xeerkaa ka baxaa dee cadowgu soo raacay kaana habeeyaa waxaan kusoo gabagabeynaya Somaliland ha noolaato cadowgeedu ha jabo loo baqi maayo Somaliland. Wasalaamu calaykum.